السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا الوقت داوديال كسر هذا برامج جارون كويجي دونه سعودان يوحكوا عن سفر مدة على قادم دونا يكون بقدرنا قارك من الجزيرة لعكم فرت قبل كجباد وصل سافر بدنا يعني سفر من طيب كأ سفر دلحيس يهون شغل سوجرة يعني هذا عم بيحزن waxaan noo bilowday socdaalka dhanka badda ee aan ku bilownay xeebta magaalada Kismaayo kaas oo qorsheynay inaan ku ogaano xaaladda guud ee jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose. Socdaalida baddu waxay ka mid tahay safarrada ugu halista badan ee dunida ee lagu socdaalo taas oo ay fududahay inay doonto kula qallimato gudaha badda inaad badbaadana ay adag tahay maadaama inta badan ay gudaha badda ku nool yihiin xayawaanno kala duwan oo saameyn ku yeelan kara nolosha qofka bini'aadamka ah. Waxaa sii garamarinay jasiirado yaryar oo ay degan yihiin dad aan aad u tiro badnayn kuwaas oo ah dadka luumaysata waxayna dadkaasi ahaayeen qoysas aad u yar. waxaan sii soconnaba waxaa badda ku sii jirnay muddo dheer annagoo ay hadba isha la helaynay waxyaabo badan oo nacajab geliya oo aad u qurux badnaa qabowga gudaha badda aragtida ku cusub qaarkeen oo ay meesha kala kulmeen iyo waxyaabo badan oo nacajab geliyay muddadii aan ku guda jirnay socdaalka badda. socdaal qaatay ku dhowaad 1 saac iyo 45 daqiiqo oo dhanka badda ayaan soo dhammaysanay. intaa kadib waxaan ku soo degnay mid ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose oo aan kormeer ku sameyn doono. waxaan ogaan doonaa xaaladaha guud ee deegaankan inagoo markaas inta ugu badan ku eegi doono waxyaabaha deegaanka ka jira. waxaan sameyn doonaa kormeer guud ahaan jasiiradaha koonfurta gobolka Jubbada Hoose yeeshee tani waa mid ka mid ah jasiiradahaas. waxaan la sheekaysan doonaa gudoomiyaha jasiiradan inta kadib socdaalkeena waxa uu socon doonaa in muddo ah maalmo ayaan halkan ku qaadan doonaa joogitaankeeda oo qorshaheedu uu ahaa in aan shaqada ka qabanno si aan wax badan ugu ogaano jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose. Kooyama ayaa lugta gelinay saacado kadib markaan soo dhammaystiranay barbilowga safarkeena oo qaar ka mid ah aan ku qaadanay inta u dhaxaysa jasiiradda Kooyama iyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. halkan muddo ayaan sii joogi doonaa si aan xog dhammaystiran uga helno deegaanka taariikh ahaan dadka deegaanka iyo waxay caanka ku yihiin dadka reer Kooyama. halkan waxay ka mid tahay jasiiradaha ugu quruxda badan kuwa dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose. si guud muuqaalka deegaanku waa mid aad u qurux badan oo ay jeclaysanayaan indhaha milicsiga aad marka libiqsan karin quruxda ka muuqata iyo bilicda soo jiidashada leh. saacado kadib gobolka ayaa dam nagu yiri oo quruxdu waxay ku sii socotaa godkeeda annaguna waxaan sii qorsheynaynaa sii joogidda halkan oo Kooyama si qurux badan ayay dadka deegaanku noo soo dhaweeyeen muddada halkan joognay. amarwasdeedii fiidnimo waxaan ku sugannahay mid ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose waxaana jasiiradahan ay kuwa isku teedsan si dheer. safarkeenii dheeraa ee ka soo bilowday magaalada Kismaayo ayaa haatan markaasi aan ku ekaanay jasiirad lagu magacaabo Kooyama oo Ameerika si amba qaadi doona hawlaheena shaqo annagoo markaasi si guud u ogaan doona gudahaan jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose xaaladahooda guud iyo weliba halka ay marayaan xaaladooda. barnaamijka inta ku guda jirno waxaan wax badan kala sheekaysan doonaa maamulada deegaanada ama jasiiradaha dhaca gobolka Jubbada Hoose. halkan ayaana ku sugannahay caawa waana 8 fiidnimo dabcan waxaana gudaha u gali doonaa magaalada annagoo oo waqtiga la qaadan doonaa mas'uuliyiinta deegaanka Kooyama oo halka ay ka bilaaban doonto shaqadeena koobaad. qaar ka mid ah dhalinyaradii nala socotay iyo kuwa kale ayaa waqtiyo kala duwan wada qaadanay annagoo halkaasi sheekooyin nagu dhex mareen. socdaallo kala duwan ayaan ku qaadanay muddadii aan joognay halkan. caawa halkan ayaan ku hooyan doonaa dhammaan asxaabtii qaybtiga lahayd howlahan shaqo ee aan u soo aadnay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose ee qaybta ka ah deegaanada jasiiradaha. waxaan ugu dambeyn booqan doonaa goobta cashadan lagu kariyay oo dhammaan martidii qaybta iga lahayd safarkan ama socdaalkan ay caawa u soo ama baxeen. halkan ayaa caawa lagu casho karin doona oo ku qaadan doona waqtigeena.
intaas kadib waxaan u diyaar garownay cawaysin iyo qaadasho waqti aan la qaadanayna qaar ka mid ah asxaab aqaltii la'aantii keligii matayn haddaynan istaakulin tabaryeelanayne habeenkii ayaa sidaas dab noogu yidhi waxaa loo diyaar garoobay in la seexdo oo inta ka dhiman la qaato wakhti hurdo kooban subaxii ayaa dib noogu baryey waxaan bilownay safaradii iyo shaqadii sidii qorshuhu ahaa waxaan dib ugu laabannay safarkeennii badda annagoo cagta marin doona jasiirado ay ka mid yihiin qandalka koyomaani iyo jasiirado kale oo qayb ka ah kuwa dhaca gobolka jubbada hoose muddada ku guda jirnay safarkii badda waxaa noo suura gashay inaan booqdo mid ka mid ah maraakiibta ka kalluumaysata gudaha badda kaas oo ay mas-uul ka ahaayeen dad Soomaali ah waxaa idiin muuqda qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay markabka iyo sida gudihiisa looga shaqeeyo maalin kadib ayaan dib ugu soo laabanay jasiiradda Koyame waxaan bilownay inaan u diyaar garowno dib ugu noqoshada magaalada Kismaayo oo ah halka uu safarkeenu ka soo bilowday 2 maalin iyo habeen oo ku qaadanay jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose bartii ayuu ka bilowday safarkeennii waxaan ku wajahanahay Kismaayo saacado badan oo madda gudaheeda ku soo qaadanay alla mahadi xeebta ayaan dib ugu soo laabanay aan ku marinay qaar ka mid ah jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose gudaanita ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka oo ku eegaynay socdaal la xiriira wax ka ogaanshaha jasiiradaha dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose barnaamijka waxaa idiin diyaariyay anigu Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqeyda kaamirada waxaan uga mahadcelinayaa Cumar Siyaad Axmed iyo Aadan Maxamed Cumar inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono wabada Jubbaland TV oo idin leh assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.